السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا مد الصومالية ميل بات شوفتان با هذه يعني دي سلامية. صباح قرح بدن. waxaan ku suganahay garoonka diyaaradaha oo Seattle Washington. waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo saaxiibkay PJ Suber iyo walaashay qaaliya Istaxayndo arrin yar oo ku qabsatay garoonka Chicago. arrintaas hor dad badan inaan ka jahil bixiyo waxa ay tahay oo runta aan idin sheego. Number 1 wax shacab ah ama wax fanaaniin ah oo ka dambeeyay arrintaas uma malaynay inay jirto. fanaaniinta reer North America waa awalba siday ahaayeen oo ku taqaanaan sharaftii iyo qiimihii ay fanaaniintooda ku soo dhaweyn jireen. laakiin nimo waxaa jira la yiraahdo dilaalinta fanka ama dilaalinta fanaaniinta oo had iyo jeer ka shaqeysta $100 ama $10 oo fanaan caaw dhan wuxuu ku daalay jeebadiisa inay ka baadaan isugu dilaya fanaaniinta isugu dilaya shacabka. anagu waan jeclahay fanaaniinta nahay sidaan anigu ogahay in badan ay ogtahay wada shaqeyn wacan oo inaga dhaxaysa, laakiin dad baa ka qaraabta ama ka shaqeysta in conflict uu yimaado si ay u helaan more dollars. aad baan uga xumahay wixii dhacay, laakiin one thing aan u sheegay waxay tahay habeenka 25ka we will have the best night. That show will happen and I promise you system kama yaqaanaan iyagu inay islaamaha iyo immigrationada iyo inay erboodida wacaan ay falaayro dhigaan bay barteen. DJ Suber will be there, I promise you. We will have the best night ever. One thing you cannot stop no waxa weeyaan waxa qof walba xaqiisa ama systemka saxda ah oo runta ah iyo reality-ga laqdabo ma guulaysato always. The reality will come. We will have a great show. See you in Ohio. Mastejo, DJ Suber. I will see you there. Peace and love.